kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal xiiso badan oo aan kaga hadli doono dhacdooyinka ugu yaabka badan ee dunida ka dhaca. maanta waxaan idin haynaa nin guurdoon ah oo sameeyay ficil ay dad badan ay la yaabeen. nin raadinaya cid jeclaata ayaa boor uu sawirkiisu ku dhagan yahay ka taagay magaalada Manchester isagoo dalbanaya cid uu haasawo la wadaago. waxaan ka qoostay haasawaha Mark Rofer waxa uu go'aansaday inuu bixiyo lacag dhan 425 gini sterling ah oo ku soo iibiyay boor weyn oo ku dhajiyay sawirkiisa kaasi oo u dhigay wada mashquul badan oo magaalada Manchester ku taala. ninkan oo ah 30 jir isla markaana ka soo jeeda magaalada Sheffield ayaa ku rajaweyn in noloshiisu uu ku soo biiri doono qof ku haboon oo nolosha la wadaago. waxa uu yiri waxa ila soo xiriiray dad ka badan 100 balse nasiib darro kala bar rag ay hayeen balse wali waxaan dareemayaa in la ii aamusay. Master Rofer oo lamaana la'aan ahaa imika muddo sanad ah ayaa sheegay inuu soo iibsaday boor dhirkiisu dhan yahay 3 mitir isla markaana uu balliciisu yahay 6 mitir si ay dadka meel dheer ugu arkaan. Master Rofer ayaa sheegay in saaxiibadii ay intooda badan guursadeen isla markaana qaar kalena ay xiriir haasawo muddo dheer ay ku jiraan. boorkan uu ninkan u dhigay wada ku taala magaalada Manchester ayaa waxa ku dhagan sawirkiisa isagoo dhinac u jiifa kuna tiirsaday gacantiisa. waxa uu sidoo kale boorku ku qoray ciwaanka magaca barta internetka uu ku leeyahay ee lagu magacaabo datamark.co.uk. bartan oo internetku ku leeyahay ayaa waxa uu ku qoray taariikhdiisa inuu yahay nin si aad u qurux badan isla markaana waxa uu casuumay qof kasta oo doonaya inuu la haasaabo. Master Rofer oo ka shaqeeya shirkad suuqgeynta ka shaqeysa ayaa sheegay inuu la yaabay inta uu qof la soo xiriiray isla markaana uu qorsheynayo inuu u wada jawaabo. waxa uu yiri dadka qaar ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan inaan waalanahay markaan bixiyay lacag dhan 425 bilyan